dalkaanayto qarannimadiisa waxaa dhisay dhalinyaro SYL taariikhda waa la wada hayaa filaya Soomaa muxuu ahaa wax jaamiciga kuma jirin Soomaa maanta jaamiciin baa hor fadhiya saasay tahayna waa ayaan daro inaan ku hambalyeeno markii la gaaro xuskooda muxuu ahaa social media kaliya bas inay nooga eg tahay laakiin inta aysan dhaafsisnayn qadyadeena sababtoo wadankii qarannimadii noo dhaliyeen waa baabi'in haddaan dhalinyaradii nahay marka waxaan laga rabaa inaan fikirno inaan maskax la imaano waxa la isku laaynayo waa dhalinyaradii waxa la isticmaalay tools waa dhalinyaradii xoog la isticmaalay waa dhalinyaradii wax walba dhan walba loo adeegsado waa dhalintii marka dhalintii ayagina isu fikiraan ay dhahaan enough is enough waa dhamaatay this is the time waxaan qiyaasayaa in dhalinyarada Puntland ay tahay wajiga horumarka ee reer Puntland awoodda dadka reer Puntland dadka ugu horumarsan bulshada Soomaaliya ku nool inay yihiin laakiin si waa la mid Soomaaliya dadka kala jooga ama dhalinyarada kala jooga waa isku wada mid haddana environment-ga aad haysataan dad baa maanta Soomaaliya jooga qaybaheeda kala digan aan haysan nabadda iyo sidaad wax u baranaysaan iyo galaaska koowaad marka ka bilowday ilaa form 4 ilaa jaamacadda dhameynaysid degmooyin iyo gobollo kama jiraan maanta horumarkaas bismillaah magacayga waa Nasayba dhalintan reer Puntland ma kamid ahay garow degan barnaamijka aad buu qurux badnaa ma sha Allah aad baan uga helay dad badan oo qiimo leh oo aqligooda badan yahay madaxa social waa imaadeen su'aalaad adag baa la isweydiiyay aad bay qurux badnayd waxaan dhihi karaa dhalinyarada waa mid furaysa maskaxdooda haddana uguma horeyso laakiin maskaxdooda hadday furmaysa saan dhihi karo in doodo noocan la qabto hadda uguma horeyso laakiin in su'aalo saan la isweydiiyay wasiiro ay arkaan waa mid muujinaysa waxay maskaxda ku hayaan iyo sida dowladooda lahayn dowladooda ula xisaabtami lahayn aad bay u fiican yahay bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa Cabdiraxmaan Abshir mid kamid ah dhalinyarada soo qaban qaabisay barnaamijka caawa halkan ka dhacay waxaan ku hadlayaa afka dhalinyarada soo qaban qaabisay aad baan ugu faraxsanahay inaan caawa ka qayb galay barnaamijka Talawadaag oo ay soo qabteen aragtida dhalinyarada Soomaaliyeed ama Somali Youth Vision aad baan u soo dhaweynayaa Somali Youth Vision waxaana ballan qaadaynaa in barnaamijkan halkan ka sii socdo caawa wixii ka dambeysana oo halkan ka dhici doono inaan wasiiro badan iyo dad badan oo sharaf leh aan keeni doono si bulshadu ay aragtidooda u weydiiso magacaygu waa Muuse Cabdiwali Muuse Baari runtii aad baan waxaan ugu faraxsanahay barnaamijkan Somali Youth Vision ay noo keeneen oo Talawadaag runtii in aaraa badan la isweydaarsado oo talo badan la ururiyo oo xogo badan la raadiyo si markii talo la helo ba fikradiina soo baxaysa qof walba oo talo haya markuu taladii ku siiyo bad fikradii helaysa fikradii markaa heshiina waxa ku soo baxaya wixii talada aad u baahnayd jawaabteedii baad helaysaa oo sax ah inaad talo heshiina waxay ku saameynaysaa hadafkii aad lahayd inaad gaartid si aad uga miro dhalisid wixii lagu sheegay oo talo ahayn aad qaadatay talada aad ku nool iyada kuma noola bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa Cabdikariin Maxamuud Axmed gudoomiyaha dhalinyarada Cayn ahna xogayaha qareennada waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa ka soo qabanqaabiyaashii barnaamijkan Talawadaag iyo Xaldoon haddaan fikirkayga ka dhiibto barnaamijkan waa barnaamij aad u qaaliya waa markii ugu horeysay oo deegaanada la keeno waana ku faraxsanahay barnaamijkan waxaan rajaynaynaa inuu soo noqnoqdo maadaama anagu aan yooska ka tirsannahay iyo doodayaasha waxa la yiraahdo bulshada rayidka ah oo qareennada isku jira waxaan aad iyo aad u rajaynaynaa in la soo celceliyo barnaamijkan isla markaana loogu yeedho mas'uuliyiinta dalka ugu sarsareysa si ay uga jawaabaan aragtida dhalinyaradu ay qabto marka ay soo bandhigaan waa mahadsantihiin dhalinyarada Puntland gaar ahaan dhalinyarada garow ku nool aadaan ugu mahadcelinaa sida barnaamijka quruxda badan ee caaw soo qabanqaabeen aragtida dhalinyarada Soomaaliyeed waa meel aan cidna ka xigin meel kasta iyo tuulo kasta Soomaaliyeed aad ku qabsan kartid adoo xor u ah fikirka arabtid iyo mowduuca arabtidna soo bandhigi kara isla markaana ku casuumi kara dad Soomaaliyeed si aragtida dhalinyarada ay wax uga bedesho fikirka hadda ay aaminsan yihiin meesha ay joogaan looga qaado visions dheer ama aragti dheer oo 2020 iyo 2060 ku saleysan dhalinyarada Soomaaliyeed loo gaarsiiyo qof kasta wuxuu xaq u leeyahay inuu ka soo qayb galo qaban qaabiyo isla markaana ka mid noqdo dadka iska leh aragtidan la rabo in lagu dhiso Soomaaliyada aan rabno